kulankii xalay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ahaa mid leh miisaan siyaasadeed oo ka weyn natiijada degdega ee laga filan karo inkasta oo aanu keenin go'aan rasmi ama aqoonsi toos oo la siiyo Somaliland haddana waxa uu muujiyey in arrinta Somaliland ay si dhab ah ugu jirto ajandaha diblomaasiyadeed ee caalamiga in arrin u gaara Somaliland lagu falanqeeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay astaan u tahay in xaaladda geeska Afrika ay marayso marxalad dib u qiimeyn siyaasadeed in nabadgelyada xasiloonida iyo dowladnimada ka jirta Somaliland aan la iska indhatiri karin iyo in dooda ku saabsan mustaqbalka qaab-dhismeedka wixii la isku oran jiray Soomaaliya ay noqotay mid furan oo aan hore loogu dhiiran jirin haddii aynu soo qaadano wakiilka Israa'iil ee qaramada midoobay ayaa difaacay aqoonsiga Somaliland waxa uu cadeeyay in dal walba uu xaq u leeyahay cidda uu aqoonsanayo waxa uu xusay in Somaliland leedahay taariikh iyo dood gaara waxa uu si dadban u diiday in Israa'iil lagu khasbo ka noqoshada go'aankeeda geesta kale waxa uu sheegay in Somaliland tahay dal madax bannaanaaday sanadkii 1960 lana midoobay siiskiisa Soomaaliya dhanka kale safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay waxa uu ka warramay xasuuqii loo geystay dadka reer Somaliland taasoo uu soo bandhigay cadeymaheeda sheegayna inay markhaati ka yihiin dhammaan xubnaha shirka fadhiyay waxa kale oo intaasi ku daray inaanay Somaliland ahaaneyn meel u xayiran Soomaaliya aqoonsiga ay siiyeen uu yahay mid xaqiiqo ah oo aanay jirin cid ka hor iman karta hadalka safiirka Israa'iil waa guul diblomaasiyadeed oo muhiim ah maadaama ay tahay markii ugu horeysay dal aqoonsaday Somaliland oo si cad uga hadla golaha ammaanka dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa iyadoo aan cambaareen aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil adkaysayna muhiimadda xasiloonida geeska Afrika Mareykanku waxa uu sheegay in Israa'iil xaq u leedahay inay xiriir diblomaasiyadeed la samaysato cid kasta oo ay doonto sida dowlad kasta oo madax bannaan tani waxay muujinaysaa in Mareykanku si dadban u taageersan yahay xiriirka Israa'iil la samaysatay Somaliland safiir ku-xigeenka Mareykanka ee qaramada midoobay oo kulankaasi Mareykanka ku matalaysay ayaa intaas ku dartay in qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka golaha ammaanku ay hore u aqoonsadeen dalal kale sida Falastiiniyiinta oo kale iyadoo aan kulan degdeg ah laga yeelan waxay arrinta qabashada kulankan ku tilmaantay laba wajiileyn wiiqaysa shaqada golaha haddii aynu eegno muhiimadda istiraatiijiyadeed ee kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa ka mid ah kor u qaadista aqoonsiga Somaliland in arrinta Somaliland si rasmi ah loogu falanqeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ah hay'adda ugu sarreysa ee go'aamada amniga iyo xasiloonida caalamka waxay astaan u tahay isbeddel weyn oo ku yimid sida dunidu u aragto kiiska Somaliland arrin muddo dheer loo arkayay mid maxalliya ama ku kooban siyaasadda Soomaalida ayaa hadda si cad ugu gudubtay miisaska doodaha caalamiga tani waxay muujinaysaa in kiiska Somaliland aanu ahayn arrin kooban saamayntiisu taabanayso amniga gobolka iyo kan caalamiga beesha caalamkuna ay qilsan tahay in la fahmo xaqiiqada ka jirta Somaliland sharciyan siyaasadeed inkasta oo aan kulanka laga soo saarin go'aan rasmi ah ama dood aqoonsi haddana Somaliland waxay heshay nooc ka mid ah sharciyan siyaasadeed oo muhiim ah in arrinteeda lagaga doodo golaha ammaanka waxay ka dhigan tahay Somaliland oo loo aqoonsaday inay tahay dal leh taariikh iyo dood sharciyadeed oo wax la iska weydiin karo arrinteeda loo arkay mid u baahan falanqayn iyo qiimeyn gaar ah iyo jiritaankeeda oo aan la difiri karin ama aan la iska indhatiri karin tani waa tallaabo ka duwan marxaladihii hore ee ay Somaliland ku jirtay oo inta badan la iska indhatiri jiray jiritaankeeda siyaasadeed kala duwanaanshaha dalalka waaweyn iyo macnaha uu leeyahay kulanku waxa uu si cad u muujiyay kala duwanaanshaha aragtiyeed ee u dhaxeeya dalalka awoodda leh taasoo lahayd xiise gaara qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay muujiyeen in kiiska Somaliland mudan yahay in dib loo eego iyagoo si dadban u tilmaamay xasiloonida iyo dowlad wanaagga ka jirta Somaliland jabinta aamusnaantii diblomaasiyadeed ee muddada dheer jirtay muddo sanad ah arrinta Somaliland kama ay muuqan fagarayaasha ugu sarreeya caalamiga inkasta oo la bixiyay dadaalo waaweyn oo sabab u noqday in arrintu halkan soo gaadho haddana kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu jabiyey aamusnaantii muddada dheer jirtay wuxuu ku daray ajandayaasha siyaasadda iyo amniga ee qaramada midoobay arrintan waxay horseed u noqonaysaa in Somaliland looga hadlo si joogto ah halkii ay ahaan lahayd mawduuc marmar la xuso saamayn fog oo istiraatiiji ah inkastoo kulanku aanu keenin aqoonsi degdeg ah soona saarin go'aan rasmi ah haddana wuxuu leeyahay saamayn fog oo muhiim ah waxa uu furay dood cusub oo caalamiya waxa uu bedelay qaabkii loo arki jiray kiiska Somaliland waxaana uu muujiyay in Somaliland tahay xaqiiqo siyaasadeed oo taagan tani waxay Somaliland siinaysaa fursad ay ku dhisto istiraatiijiyad dheer oo ku wajahan aqoonsi iyadoo ka faa'iideysanaysa isbeddelka ku yimi aragtida caalamka ugu dambeyn kulankani ma ahayn guul kama dambaysa balse waxa uu ahaa tallaabo hore loo qaaday iyo guul diblomaasiyadeed oo tartiib tartiiba taasoo Somaliland u furtay waddo cusub oo siyaasadeed Cabdicasiis Ciidiid Cilmi warbaahinta qaranka